waxaa farxad weyn inoo ah inuu idaacadii afdal ahayd ee qur-aanka kariimka ahaa ay laba jirsatay idaacaddaas oo shacbiga Soomaaliland meel joogaanba ay u yaqaan kana faa'iidaysteen sidoo waxaa maanta dhamaaday tafsiirkii qur-aanka kariimka ah ee ka socday idaacadda qur-aanka kariimka ah sheekhii mariyey iyo intii la socotayna ilaahay ajirkeeda ha siiyo ilaahay ayaan uga mahadnaqaynaa nidaam caraas waxaan kusii wadaynaa waxaan mahadnaq gaara u gudbinayaa madaxda iyo howlwadada warfaafinta ee arrinta muhiimka ah ee mariyey maalinta khamiista saa dambe waxaa inoo bilaabaysaa bishii ramadaan bishii barakaysanada ramadaan shacbiga Soomaaliland meel joogaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku gudbinayaa inay waajibka ilaahay ina saaray sidiisa u gutaan waxaan ku baraarujinayaa inay ilaashadaan cibaadadooda nabadgelyadooda iyo midnimadooda oo aynu ka fogaano wix ilaahay naga reebay iyo wax kasta oo shaydaanku jecel yahayba aad iyo aad baa umahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.